arrinta kor ku xusan saa darteed joogtaan halkan waa hoyga fanka iyo suugaanta Germany fadlan haddii aad ku cusubtahay subscribe gambaleelka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeysa mar walbana waa noo muhiim u diyaar garooba muuqaalkiina dunida iyo maanta waxaana daawadayaal muuqaalkiina maanta dunidii maantaan kusoo qaadan doonaa fanaanka weyn ee muqdisho caanka ka ah ee la yidhaahdo dayaxdal nuurshe oo maalmahan bilaabay in uu u gurmado dadka ay saameeyeen musiibooyinka ka jira dalka markan waxa uu dayax u xubsiibanayaa dhanka arrimaha bini'aadanimada asagoo uu sheegay in fankina uu sii wadi doono haddaba muuqaalkeena maanta ayaan ku eegi doonaa dayax maxaa iska bedelay noloshiisa iyo weliba qorshihiisa fanka miyuu ka baxay guud ahaanba fankii miyuu u xubsiibtay dhanka bini'aadanimada iyo caawinta dadka dhibaataysan goorma ayse ahayd xilliga ama waqtiga howshan uu bilaabay oo ah in dadku uu caawiyo isagoo weliba isticmaalaya barihiisa gaarka ee facebooka iyo aaladaha kale uu isticmaalo fanka miyuu ka baxay mise waa uu ku jiraa goorma eed waqtiga ugu dambeysay heese cusub oo soo saaro dhammaan su-aalahaasi kuwa kaleoo daawda aad adigu qalbiga ku jira ma isweydiinaysana muuqaalkeena maanta ayaad ku daawo doontaan intaana gurigelin daawade aan ku xasuusiyo halkan waa hoyo fanka subscribe inoo dheh gambaleel kala taabo waxay kaa saacidaysaa muuqaalkeena in taleefanadaada ay kugu soo dhacaan adigoo gurigaaga jiifa ama shaqadaada ama hoygaaga ama meel walba adduunyada aad ka joogto in mobilkaaga gacanta uu kugu soo dhaco dhowrkii cisho ee ugu dambeysay fanaanka dayaxdal nuurshe ayaa bilaabay in muuqaalo barihiisa bulshada ama facebook live uu soo galo uuna sheego inuu u wareegay dhanka arrimaha bini'aadanimada ama samafal uu sameyn doono isagoo ka hadla musiibooyinka mararka qaar ee ka dhaca dalka sida fatahadaha ay sameynayaan webiyada dalka roobabka daadadka ka dhasha oo khasaaro geysta iyo weliba dhacdooyinka kale ee musiibada ah dhacdadii ugu dambeysay fanaankan u gurminaya ayaa waxay aheeday midii waxyeeladii kasoo gaartay gabdho 3 qof ah waa gabdho yaryar oo 3 jir ah oo 3 qof ka koobnaa oo lagu kufsaday degmada Afgooye markaasoo dayax u istaagay sidii gabdhahaasi loo caawin lahaa bartiisa gaarka ee facebook live uu ka soo galay ayuu waqtigaasi u aruuriyay lacago aan badnayn kuwaasoo qoyskooda ugu tabarucay lacagahaas ayaana gaarayay $2,000 uu ka aruuriyey dadka fanigiisa ama dadka asaga taageera oo beejkiisa live uu ka soo galay hadda dayax ayaa bilaabay howshaas inuu sii kordhiyo wuxuuna ka qayb qaadanayaa taakuleynta dadka ay saameeyeen daadadkii ku rogmaday magaalada Qardho ee gobolkaasi Karkaar sidoo kalena fatahada webiga Jubba uu ka sameynayo baar dheere oo gobolka Gedi ka tirsan Jubbada Hoose ayuu bilaabay inuu gargaar bini'aadanimo uu bilaabo fanaanka dayaxdal nuurshe mar lagu weydiinay qorshahan ayuu sheegay in hadda kadib xoog iyo awoodba isku geey doono taakuleynta iyo caawinta dhanka samafalka ah sidii loo caawin lahaa dadka danyarta ah ay dhibaatadu ka soo gaartay musiibooyinka dalka ka dhaca dayax ayaa hadda muuqaal live oo saacado kor uu soo galay waxa uu kaga hadlayay musiibada ka jirta magaalada Qardho ee gobolka Karkaar halkaasoo daadad sababay roobab xoogan oo ka da'ay gobolkaas daadad kusoo rogmaday magaalada ay sabab u noqotay in dad badan xulahooda ay ku waayaan dad badan ayaa dhintay dhimashadu waxay gaaraysaa 7 qof qoysas badan ayaa barakacay sidoo kalena baar dheere waxa ku fitay webiga Jubba oo dad badan oo qoysas ayaa ka barakacay gudaha magaalada baar dheere xarunta gobolkaasi Godob fatahada Jubba baar dheere kaliya ma ahayn ee gobolka Jubbada Hoose ayuu meelo badan saameeyay fanaanka dayaxdal nuurshe oo soo galay bartiisa facebook ayuu sheegay inuu bilaabi doono gurmad iyo qayladhaan ku aadan sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen wuxuu halkaas ku soo bandhigay taleefanada number ee EVC Plus ee lagu gurmanayo lacagaha dadku ay ku soo dirayaan Islam Bank haddaba daawade ma kula tahay dayax inuu fanki ka baxay iyo in kale iyo inuu howshan u xisibtay waa maxay sababta ku qasabtay dayax inuu howshan qudhiisa u xisibto waa kan dayax oo arintaasi sharaxaya imaan aniga iyo walaalkay Xuseen iyo walaalkay Mascuud qaboobe oo ninka naga dheera u jeedaan ah arrin kale oo wanaagsan oo maxaa la ii sheegay ku saabsan dadkii dadka haleelay ku kala sugan Qardho iyo baar dheere saadarteed waxaan rabnaa inaan dadkaas maxaa la ii sheegay aan u sameeyno gurmad iyo caawin iyo farxiyo meeshan ka hadlosay ayaa iga bixiyay meeshaan war igu soo qoraysa
dumaashi waa ku salaanay commentiga naga dhaaf marka waxaan rabnaa inaan arrintaas maxaa la ii sheegaan ka hadalno oo dadkaas maxaa la masaakiinta ah ee walaalaheena ay dadka ku soo rugmaday maxaa la ii sheegeen inaan u gurmano oo qof walba wixii kalaamkiisa qof walba wuxuu awoodo $1 ugu yar inuu qofkii maxaa la ii sheegeen awoodo inuu nagu caawiyo si maxaa la ii sheeg dadkaas walaalaheena aan si degdeg u gaarsiino caawimaad marka walaalkii Xuseen ku soo dhaweynaa deex waa mahadsantahay adii Mascuud iyo dhammaan dhalinyarada kale ee hawshan gacanta naga siinaysa arrintan waa arrin qaran waa ogtihiin magaalada Qardho degmada Qardho ee gobolka Bari xaaladda ka taagan waa la socotaan ilaa iyo hadda dad badan way dhinteen dadna daadadkii ayaa la tagay dad badan oo guryahoodii ay daadadka baabi'iyeen guryo la'aan iyo cunto la'aan iyo caafimaad daro intaas oo idila isku kaashtay marka waxaa loo baahan yahay walaalahaas inaan garab istaagno oo wixii karaankeen ah aan ku darsano cid kale ma noo istaagayso haddaanan annaga oo Soomaali ah iscaawinin sida ogtiina dayax door weyn uu ka qaadanaya maadaama dad badan ay ku xiran yihiin waxaan rajeynayaa inuu hormuud u noqdo dhalinyaro badan oo iyagana dad badan ay ku xiran yihiin oo awoodooda dadka caawiyaan lambarkan waa ku soo diri kartaan oo halkan saaran يسوع شغل على المركز فضل لمبر كان بينك سعرها كنت نسدح سديتنا طواتي لح وقصادر كرتنا وحي مركز محل لا يشق أودينا سي أو معاونة أما كونك كرو سعرين هاي هل كان هذا كم مقارنة كونك لكن ضد كمستل وحي استعمالا EVC بلاس صادرت EVC بلاس هان ومحل لا يشق وصو استعمال كرتنا يا واي فراها هدارتي والله بشان لبل لحل هداد Puntland iyo Somaliland joogtay Muqdishona sidaan ugu soo diri kartaa iyo koonfurta joogtay حتى Somaliland dadka joogan iyo Puntland ba Somaliland sidaan laftirkeeda u isticmaali karaan sida maxaa la Muqdisho 06 ma ka bilaabaan 61 ay ka bilaabaan Muqdisho dadka jooga eber 6 hal ka bilaabaan laakiin dadka Somaliland jooga waxay ka bilaabayaan eber 6 hal sidan caadiga marka ugu soo diri karaan EFC ahaan ayagu waxay isticmaalaan sad laakiin si toos ah noo soo gaarsiin karaan teeda kale waa ugu mahadcelinayna markii aan wadno gurmadkii hore ee maxaa la ii sheeg labada gabdhood yaa ka mas'uul dayaxa ka mas'uul marka anaga ka mas'uul ah saadarteed markaan wadno gurmadkii hore ee labada gabdhood maxaa la ii sheeg Hargeysa waxa naga soo gaartay deeq zaid u badan waan ugu mahadcelinaynaa walaalaheen ilaahay waxaan leenahay haydan xafido maxaa la khayrkana haydiin barakay haydiin saa'idiyo Mascuud adigana inta ku dareysid waa mahadsantihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed nacam soo siko okay think 15 inaa ku jiraan oo idinka dheer haday istaagay Soomaalidu waxaa la dhahay xeega sidoo xeeg I think maamada aad ugu fiicin xeega sidoo loo xagtaa la ilkana ku nabad galaan maadaama bil Ramadaan lagu jiro haddana dhibaato ay haysto dad walaalaheena oo joogo I think Qardho oo kaliya maahan baar dheerna waa la joogaa Qardhana waa sidoo kale dhibaato ka dhacday dhimasho dadaal la ayaa sidoo la sheegay sideen ugu gurmad karnaa maadaama saddexdeen dhalinyaro isku imaanay fikir isku darsanay maadaama bil Ramadaan lagu jirona wax walba oo idinkaas soo gudbisiin ama soo dirsataan sidee tahay u gaari doontaa waxba ka baqina taas gurmadka ma aha kaliya reer Qardho sidoo kale baar dheerna uu gaari doonaa waxaadana dhibaato maadaama ay jirto aan lahay COVID-19 oo jiro oo magaalada dhan oo hadana cabsi ay jirto waxaa isku keenay fikir ah inaan sameeyno fundraising magaalada oo dhan maadaama kaliya aysan dadka inta badan aysan ku filnay waxay dadka soo diraan dadka magaalada in loo galo oo Mareykaniyooyin dhar wixii dadka awoodaan haddana maadaama dan cudurkii la dhahay xitaa lacagta lagu kala qaadayaa hadan taas xoogaa challenge nagu noqotay inaan ku sameeyno haddana insha Allah laakiin wax inta dadaalkeena waa sameyn doona hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynaynaa in sida maanta anaga rajeyno in aan si ka daran hammi meesha rajeyno
meel ka wanaagsan inaa gaarno marka walaalayaal waxaan sameynaynaa xitaa dadka waxaan kaloo baaq u direynaa dhalinyarada wax kasta waxaa maanta kala socodsiiyo maanta maxaa la ii sheeg waa dhalinyarada ilaahayna ha noo daayo dhalinyaradeenna waxaan leenahay dhalinyarada for example leh carwooyinka dhalinyarada leh dukaamada dhalinyarada qof walba awoodiisa inta la eg tahay oo example qofkii sadaqaysan karo maxaa lahaa kan kor marada kaneecooyinka dadka dharka sadaqaysan karaan waan u sameyn doonaa insha Allah haduu la yiraahdo dadkaas qofkii dhar sadaqaysan karo qofkii mara kaneecooyin sadaqaysan karo maxaa yeelay dadku kaliya ma baahno maxaa la dad biyo ku dhex nool oo waxa waaye maanta kaneeco cudur wax kasta iska iman karo saa darteed annaga waxaan ku dadaalaynaa maadaama dawladdu wado dadkii oo dhan ay wadaan annaga laakiin dhalinyaro ahaan saddexdeen maanta fikirka isku darsan waxa waaye inta kalaamkeena at least meeshii boqolkiiba 80 ay dad kala qaban lahayn ugu yaraan xitaa 20 ama 30 haddaan qabanno ama 50 meeshii markaas aan gaarno marka maadaama aan dhalinyaro nahay oo aanan u rabnay aan dadkeena si ilaahay dartiis ah aan u caawino marka idinkana waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal inaad garab istaagtaan oo garabkeena istaagtaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan ku wada caawin lahayn dadkeena Soomaaliyeed ee maanta meeshaas ku dhiban maanta qof kale ma sugayno cid kale maanta aadeen way noo soo gurmanaya adduunka ma jiro beel caalami iyo waxaas cidna ma sugayno waxaan u baahanahay kaliya inaan maxaa lahayn inaga isgarab istaagno oo inaga maxaa lahayn ishaan yani isku naxariisano ilaahay wuxuu dhahay isku naxa aydin naxariistee marka inaan inaga isku naxariisano dadka qurbaha jooga liibaan wuxuu leeyahay dadka qurbaha jooga numberkaas ma ku soo diri karaan dadka qurbaha jooga isla numberkaas ay ku soo diri karaan soo jecesida baska reer muqdisho صدقوا qofkan wuxuu leeyahay reer muqdisho leh ma qofkii awoodo wuu soo diri karaa meel kasta qofkii awoodo dayax fanaan qaran waaye raali ahaada anagana dhalinyaro qaran aan nahay qof kasta oo koonfurta waqooyiga meel kasta jooga dayax mas'uul ka yahay maadaama uu nin dhalinyaro fanaan ma yaha isku qabsanina reer muqdisho reer Puntland waxaas ma ahan anaga Soomaaliya nahay siyaasadda iyo dhibaatooyinka ka kala dhaxayso dadkan maxaa la ii sheeg wadanka xukuuma anaga shaqo iyo shaqo midna kuma lihin waxaan kaliya oo ka hadlaynaa qabyaaladna u baahnay anaga waxaan nahay dad maxaa la ii sheeg dhalinyaro ah oo iskood u baahan inay masaakiinta u caawiyaan marka siyaasadna shaqo kuma lihin wadan kalena shaqo kuma lihin anaga Soomaali qof kasta oo af Soomaali ku hadlayo waa noo Soomaali waana walaalkeena oo jecelnahay maanta dadka aan u rabnay inaan u gurmano wax u qabana sida Ilaahayna loo gaahana mana hal qof maanta kuma naqaano kaliya waa muslimnimada iyo Soomaalinimada iyo maxaa xitaa deegaanka ma tagin laakiin waxa intaas naga keenaysa maanta waxa waaye inaan yani Soomaali iyo walaaltinimo iyo naxariista qalbiga oo naxariis maxaa la isha qalbiga u rooneen marka cid walba waxay sadaqaysan kartaa fadlan walaalayaal inaan ugu caawisaan oo maxaa la sheegay haduu ilaa yiraahdo aniga iyo walaalkay Xuseen iyo walaalkay Mas'uud ay xilkaasna saarataan qof villain jooga wuxuu leeyahay inta ku soo diri karaa walaal waxaan sameyn karnaa after live ka markaan ka baxno waxaan sameynaynaa lambarka iyo akoonka labada meesha ku soo qoraynaa lambarka oo dhameystiran meesha ku soo hadii kalento qof kasta oo message ku saabsan inuu dadka caawiyo oo noo soo diro akoonkan page-ka lambarka meesha messageska please igu soo dira message-ku uu furan yahay hadaa ila soo hadashaan waa idin soo jawaabi doonaa insha Allah waa maasantahay marka South Africa ayaan joogaa ee ku soo diraahay lambarkan waa idin soo qoraa fadlan message soo qoro fadlan qof kasta u baahan inuu dadkan caawiyo message soo qoro message-da oo dhan waa furaya hadii la yiraahdo waana ka soo jawaabi doonaa cid kasta oo u baahan inay ku dirsato waa isla lambarkan halkan ku qoran hadii halkan mashquul ka dareentid WhatsApp waa kala soo hadli kartaa dayax isla lambarkan waan ogtiin ramadaanka acmaasha wanaagsan dhawaa la laabaa sadaqada baxsada walaalihiin waa dadka dhibaataysan ina iskaashanana wax muhiim ah waay اوكي هذا انا لايف كان كبخينا انستغرام لايف هذا كسي نقولنا سان وسي سمينو وعيغلينتا ku saabsan waxa la ii sheegay caawinta marka waa maadsantiin fadlan